madaxweyne xasan sheekh maxamuudna mahad salaad aqoon ma laha ma yaqaano hadduu aqoon lahaana uma magacaabeen nabe unu ka yaabna ya haddaan he xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad tanyatiya iska daba dudayeene aqoon isuma laha ma haddaan la soo rogtaa mahan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aray sharxay way soo dhawaada minoo muuqaalkan ku soo gaarana laay garay siina sheer garay aray ciimankana soo falow garay caawa waxaa idin wadaa fiideo xamaasadiis iska wadho sharxaay iyo Fahad Yaasiin oo isku furda baxay daawasho wacan aray Fahad Yaasiin oo horta adigu 5 sano ee dawladda nabad iyo nolol jirtay mucaaradka afkay furaan Fahad Yaasiin aan lagu waashaday horta korishimaha lagagama dheeline ya Fahad horta yaa ku korshay adigu waxaan ahay hooyo koris ayada ay barbaarisay ayada ay korisay ما شاء الله هويلا هرتا كوريشيمها كاغا ما ديلين فهدو كوده هوشان انتادان soo bilaabin bilowga howshada intaad ka soo bilawdo noo sheeg bal bilowgeedii waxaan ka bilaabay dugsi quraan ama macallinka noqdo waaba arkaba fahadow sida macallin dugsi quraan oo kale inaad mucaaradka hilaq ka dhahday oo kalba luuq ku cadaabaysay waaba dareemaba inaad macallin quraan ka soo bilawdo howshadeeda waxaan ka rabaa dhalinyarta horta waa kala baxday qolo ictisaam ay noqdeen qolo ittixaad ay noqdeen qolo suufiye ay noqdeen qoloba meelay ku qanacsantahay adigu dhalinyartay kamid tahay oo maxaad ku fahantaa noo sheeg bal aniga waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii ku qanacday manhajka salafiga ah ku qanacday ururka al-ittixaad islaami xubin ka noqday darajooyin sarsare waliba ka gaaray waana ku faanaa hooqay nabay horta shaani waa taa fahadow waxaan ka rabaa mugin nisa lagu magacaabay waxaad nisa ka gurbisay oo sirraysa uga nadiifisay horta hay'ad nooma sheegtida waxaan hay'adda ka saaray wax allaale iyo wixii faragelin ajnabi ah oo ku dhex jiray oo si xad dhaaf ah ugu dhex jiray oo fahadow hadda ma waxa ilaad anigu shisheeye la tusi ma karo taada kale waxa iga su'aala mugad la kulmaysa madaxda Kenyaanka ee Axmedow laf dhuunka isku aheedeen fariinta Axmedow ugu fartay hay ahayd walaalow waxaan gaaray inaan ku iraahdo iyadoo mas'uuliyiin Kenyan fadhiyaan Axmedow u sheega madaxweynaha ugu farmaajo waaye ma aha madaxweynaha Kenya nabe waa arkay fahadow adiga iyo Axmed Madow inaan la iskin tusi karin oo dab iyo basiir isku tihiine Puntland waqti xaadirkan xaad ka aaminsan tahay intan waxaan aaminsanahay Jubbaland Puntland inay ku khasaartay xiriirka Jubbaland la samaystay waagaas كو هرت بوتلا من المهس كو قصارتي مني كلا انو شقيه شغل كمله waxaan ka rabaa fahadow gabadhii kala tahliiladahay Allah u naxariiste ee nisay ku maqan tahay la leeyahay ee dadka lagu tuhma aad ku jirto yaa walaal horta gabadhaas idinka idin shaqeeysay aqoon fiican ma u leedahay gabadhaas kalaan waa aqaana ayadana aqaana qoyskeedana aqaana hooyada ma aqaana familkeedana aqaana ya min aad biigu inkirnaa ban nasiib leeyahay kowde taada kale ra'iisul wasaare Roble kiiskaas walaxaanka oga u dhahaye maruntiisa masabeentiisa waa fahadow laakiin waa runtiisa aan maleena wooge waa runtiis aaminaad isla ogtihiin ma unu kadna barareysiin wala yaabe ya haddaan mahad salaada waxa loo magacaabo nise madaxweyne xasan sheekh aqoon intee la ego u leeyahay mahad salaad ma nooga jawaabi kartaa su'aashaas madaxweyne xasan sheekh maxamuudna mahad salaad aqoon ma laha ma yaqaano hadduu aqoon lahaana uma magacaabeen nabe unu ka yaabna ya haddaan he xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad tanyatiya iska daba dudayeene aqoon isuma laha ma haddaan la soo rogtaa mahan waxaa kaloo ku weydiiha saraakiisha ciidamada nisa hadda ku jiro fariinta aad rabtay inaad u sheegto yaa xaytaha waa la yaabe yaase laga ilaaliyo sirta qaranka waxaan rabaa inaan kuu sheego sargaalka nabad sugidda Soomaaliya ka tirsan ee sir qaran la wadaaga taliyaha cusub ee la magacaabay waa qof sirtii qaranka u dhiibaya qofkii laga ilaalinayo hooqay arwaa la yaabay yaa haddan waxaa ku weydiiha mahad salaad maaba ninka sirta qaranka laga qariyo haya ay haddaan ya taada kale su'aal weyn ma hantaalo ilmihii Eritrea loo raray ee la leeyahay dagaal la galshay asan juf baada laga dhigay fahadow meel ku sheeg ilmahaasu dagaalka ma ka qayb galeen mase ka ma qayb galin hal askari oo ciidanka dawladda Soomaaliyeed ay u dirtay Eritrea oo tababarka military u aaday hal askari oo ka qayb galay ma jiro alwaayaha fahadow minay ilmahaas fayow yihiin xamarahay ku sugaynahay dawladda nabadiya nolol aad adigu maamulkeeda kamid ahayd haddaan dawladdaas waa dhacdo dawlad kala timide qadarna xiriir aad la leeyahay la leeyahay fahadow xiriirkaad iyo qadar idinka dhaxeeyo intuu ku dambeey doona talow ma sii jiri doonaa waayahay fahadow hada institution ma aha hay'ad ma aha qof baa hadda maxay la soo xiriirayaan dawladda Soomaaliya madax ka oo hadda waxaad leedahay miya aan qadar waa noo kala dhamaatay horta nabay leeyahay isku kala hari maysiine waxa iga su'aala dada waxay leeyihiin nabadiya nolol doorashada looga kuuleystay ceebay dhaxda ka yaaliin fahadow arinkaas xaad naga leedahay ceeb ma dhaxda ka taalin mise niman waxaad tii lugahaas kor saarto badalooniyaala hadda siyaasadda Soomaaliya in laga badiyo ceeb ma aha khaladna ma aha doorashada marba gashaa wad guuleysan marka la geli ma guuleysanaysid waa natural adduunka dhan bay ka dhacdaa
أري كواس وحيها ينشرها يفهد أسلو اسكفر دبحة كودها ولا حبض النواس وصو عضونانه من أبو قال كان كسو قارو أري لايك سار سينا شر قري عبان كان سوف لو قري نقولك هلا وضع